General Patrick Marty oo u dhashay dalka Holland ahna madaxa kooxda qaramada midoobay ee kormeerka xabad joojinta magaalada Xudayda ee dalka Yemen waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi isla markaana uu iskaga degi doono 2 usbuuc kadib lama shaacinin sababaha iscasilaadiisa inkastoo la sheegay in uu caqabado kala kulmay taabagelinta heshiiska xabad joojinta magaalada Xudayda ee dalka Yemen. qaramada midoobay waxa ay shaaca ka qaaday in ay aqbashay iscasilaada sarkaalkaasi isla markaana madax oo ahaa kooxda ugu sareysa kormeerka qaramada midoobay ee nabad ilaalinta kuwaasi oo joogay magaalada Xudayda ee kaabiga ku haysa badda cas. dhinaca kale sarkaal oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Yemen waxa uu u sheegay wakaalada wararka Shiinaha ee Xinhua in qaramada midoobay ay ka heleen warqad rasmi ah oo ay ku sheegayaan in General Patrick Marty oo xilkaasi iska casilay isla markaana uu sii wadi waayay hawlihi ay u magtay qaramada midoobay ee kooxda nabad ilaalinta u joogay magaalada Xudayda ee dalka Yemen. qaramada midoobay waxa ay shaaca ka qaaday in General Patrick lagu bedeli doono general u dhashay dalka Denmark oo lagu magacaabo General Michael Anker kaasi oo xilka la wareegi doono bisha soo socota ee Febraayo. maleeshiyada xuutiyiinta ee Iiraan taageerada ka hela waxa ay ku eedeeyeen generaalkaasi inuu ku fashilmay heshiiskii taabagelinta nabadda ee xuutiyiinta iyo dowladda Yemen kaasi oo ay ku gaareen caasimadda dalka Sweden ee Stockholm. heshiiskaasi ay labada dhinac ku gaareen Sweden waxa ku jiray heshiis xabad joojin ah oo dhigayay in ciidamada dowladda Yemen iyo maleeshiyada xuutiyiintu ay si buuxda uga baxaan magaalada dekedda leh ee Xudayda isla markaana ay qaramada midoobay la wareegto maamulka dekedda magaalada Xudayda iyo in ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalintu ay gacanta ku dhigaan Xudayda. toddobaadkii la soo dhaafay tacshirad ayaa lala beegsaday gaari gaashaaman oo ay saarnaayeen General Patrick iyo kooxdiisa ee nabad ilaalinta kaasi oo marayay magaalada Xudayda lamana sheegin khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi taasi oo u muuqata in ay tahay sababta ugu weyn ee generaalkaasi uu xilka uga degay.